haddana meel nabad isugu kaana keenay marka labaad waxaan u mahad celinaynaa shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Marka oo gudoomiye Cabdullaahi iyo maamulkiisa oo ay ku martay qaadeen dadka deegaanka degmada Marka oo kala duwan oo meelo badan isaga yimid waxa kale oo ka mahad celinaynaa sida loo soo ajiibay iyadoo waliba aan aaminsanahay in aad ba loo yimid ba rag badan meelo badan laga yimid oo aan aaminsanahay in degmada inteeda badan waxaan mar labaad ka mahad celinaynaa sida loo soo ajiibay waa ka mahad celinaynaa soo dhawaada shirkana wuxuu ku saabsan yahay maamulka degmada Marka gogosha dhigay ujeedaduna waxay isdhexgal bulsho isu keenay dadka isfahansiin dhamayn colaadihii jiray iyo waxyaabihii la soo maray in laga qoomameeyo maamulka degmada Marka Cabdullaahi waafow oo dadku saas u yaqaanaan waxa kale oo jooga laba xibnood oo maamulka degmada ah gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo maamulka iyo xogeeyaha dawladda hoose oo nin diiwaan dadku u yaqaaneen nin yariisu u yaqaanaana way joogan soo dhawaada shirkana ayagan ku wareeji doona adinkuna waa aad mahadsantihiin sida aad uga soo qayb gasheen sida aad u soo ajiibteen sida aad u timideen sida aad u muuqataan xaflad wanaaga idinka muuqda iyo nabadgeliyadana aadan idinkaga mahad celinaynaa waana aad mahadsantihiin